السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دوادا عشر كله أو حيصلة عشر كنت أنا أقول قلنا أردد دمان هي ساعات حكا عدسنا channel كإن سبسكرايب لسارو أن أردد كاللغو سيفافيو أن قيبت أونلاين كه لغو صبير نمبر كمشي يسارين هاي وحارة مانتا أن دواقي أكا هذا اللي عشر كهوري أعربنا إن جودها أسيقلنا وحيابك لو ديرادي أكا شرحنا haddii mar kiciska mise dhawaaqa mise akhriska aad ku fiican tahay oo kale mise qaabka laga rabo aad u akhrinayso waxa ka hadalnay waxay ahayd bilowga marka wax ka akhrinayso waxa ka hadalnay consonanti iyo irabu markii laba consonanti israacdo qaabka sidii loogu dhawaaqayo consonanti irabu marka israacaanne sidii loogu dhawaaqayo consonanti noo soo macnaynay videogaas ku laabo haddii videogaas ku dhaafay عشركان عشر كهوري هذا مركو حوي مان هنا وحجر كونسونا إيرابيال شغاليو أو قدام بيو حرفها قار إريدا قار نا تسألون وقاعدة دونا أ إ إي أو إيرابيو نا مش شغالية مش فاولز هدي إري oo ereyadaas u dambeeyaan tusaale kale oo laba israacana ka wada kaliya u dambeey iska day laba shaqal oo isku xigo laba shaqal oo israacday oo u dambeeyo erey u dambeeyo arabna sida loogu dhawaaqay ereyadaas tusaale waxa qaadanaynaa u iyo hadday israacaan hadday u dambeeyaan macnaha ereya qoran tusaalooyin waa qaadan doonaa ereyga tusaalahaan oo kale waa fungua uda iyo ada waxaa loo akhriyay uwa fungua alle uwa loo akhriyay uwa inay waa ku jirto amal loo akhrina hadhow ma dhehaysid fungua ma dhehaysid fungua maxaa leedahay fungua waxa u imaanaynaa tusaale waxaa qaadan doonaa angalia maxaa meesha la qaatay angalia inay ku jirto amal loogu dhawaaqay angalia hadhow ma dhehaysid angalia ma dhehaysid angalia waxaa qaadan doonaa ficil oo asaga dhanba ka kooban laba iraabo waa o iyo hadhow ma dhahayn marka ma dhahayna maxaa leenahay owa salaano kale tan ugu horeey waxa dhahnay fungua wa fur angalia fiiri owa waa guursasho mise guurso owa ficilka owa marka maxaa qaadanay waxa qaadanay oo noqonayso uwa waxa qaadanay oo noqonayso dhawaaqeeda waxa qaadanay dhawaaqa oo oo dhawaaqeeda noqonayso owa waxa u imaanaynaa maxay noqonay ee noqonay hadhow tusaale kifutio hadhow ma dhehaysid kifutio ma dhehaysid kifutio maxaa waaye waa tirtire kifutio ma dhehaysid maxaa leedahay kifutio so ooda maxaa loo akhriyay iyo na iyo waa waxaan qaadanay la soco ereyada konsonantiyaasha maxaa la jiray xarfaha sawaaxiliga mise ereyada sawaaxiliga badanaa wax u dambeeyo waa irabu taas inaa ogaataa laga rabaa nyumba maxaa u dambeeyo gaari maxaa u dambeeyo siimu maxaa u dambeeyo kuja maxaa u dambeeyo ama ficil ha ahaado ama magac ha ahaado ereyada sawaaxiliga maxaa u dambeeyo irabu waysbaan noo malena waxaa umaynaa soomaaliga xataa inuu sidaas u yahay hadaan qaldanayn marka ereyadaas
dhawaaqaas oo ereyadaas ay xarfahaas ay u dambeeyaan iraabuda u wada dambeyso dhawaaqooda inaa xoog iska saarto isku day sababtoo ah hadhow se u qoran yahay hadaa waa u akhrina aad dhahdo oo u kala dhigto sida u qoran yahay waa loo akhrina laakiin ma kala dhigaysid ama dhehaysid iyo aad leedahay afka carabka fududeynay so ereyadaas haddii aad rabto in dhawaaqooda aad keento carabka iska fududay wax normal ah ka dhig ereyga soo tuur hashidin ha kala dhigin adigoo isku dayayo ina ereyga dhawaaqiisa soo saarto dadaalay ka tahay laakiin dadaalka marmar waa fashil marka easy ka dhig iska soo tuur ereyga kifutio angalia fungua oa ways fahanaa malena erey kale ayagana waxa soo kale hene waa insha Allah soo sharxi doona channelka la taageero yaa la hilmaamin subscribe in la saaro cashirada online kana way socdaan in lagu soo biiro like-ta share-ka ardayda kale hala gaarsiiyo halaas ay ku soo gabagabeynina wabillahi tawfiiq